السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada dhammaan walaalaha saxaabta. maanta barnaamij yar oo hordhacan rabaa inaan ka hadlo ku saabsan mowduuca aan u soo galay YouTube ama social media oo dhan. bulshadeena aan is iri barnaamijkaas uu ka maqan yahay wax ku oolna waa u noqonayaa bulshada, dhalinyarada, hooyooyinka, bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan. haddaan ka bilaabo dhalinyarada, maxaa guurka ka aaminsan tahay? guurkase muxuu sharuudaahu leeyahay? waan kaa helay, waan ku jeclahay, anna sidoo kale waan ku jeclahay. miyaa ka aaminsan tahay inuu guurkoo dhan yahay? waa sidaan u badanaa Soomaali haddaan nahay. dhalinyaradeenna ama xitaa annagu xilligaan soo guursanay, yacni hooyooyinkeenna, in ilmaheennana sidii oo kale ay noqdaan, aan uusan guurku qodobo yeelan oo yacni dhalinyaradu ayna qodobo ku heshiinin. maxaa naga horeeya? ayna wax hordhaca haysan, hooyooyinkuna ayna ka sheekayn, aabbayaashuna aysan ka sheekayn mas-uuliyadda taalla meeshaan. laba qof oo iska heshay oo xiiso yar wadaan inuu ka ballaaran yahay, iftiin inay ka haystaan dhalinyaradu. meeshaan gurigan labadan qof waxa ay ku heshiinayaan wax weyn baa yaalla. qodobo inay canaab markay timaado kalete xeer labadooda kala celinaya, in la helo, dhalinyaradu helaan, in dhalinyaradu ay hooyooyinku u sheegaan, gabar iyo wiilba, mas-uuliyadda meesha taalla, oo qof walba ay asagoo ogsoon waxa ka soo horeeya iyo waxa ay tahay, ay reer egleelaan oo reer ay dhisaan. laakiin haddii reerkiiba lagu boodo oo la dhiso iyadoo la isleeyahay waa kaa helay, waa kaa helay, waa meesha aan maanta naalno oo furiinka u batay. hooyo single mother ah, gabadheeda single mother tahay, gabadheeda gabadhay sii dhashay single mother tahay ayaa maanta Soomaaliya laga helayaa, oo ilmahoodii isku hal guri iskugu keenay, fac ka fac. haddana aniga hooyaan ahay, haddaan soo arkay single mother, waa in aan dabaqaa, wiilkayga gabadhaydaba aan ku dabaqaa wixii iga khasaarihii isoo gaaray. aan yacni wax ku dabaqi karo, dhihi karo qodobkaas iyo qodobkaas iska tiiriya. yacni wixii qadara waa dadaalnay, qadaraana dhacay, markaas dhima laha oo qadarka alla ma celin karno. laakiin ilaahay wuxuu yiri dadaal waan kula jiraaye. marka booska dadaalka inuu meesha ka maqan yahay baan u dareemay. da'yartana wax maanta dhahaya war nolosha idinka horeysaa, tiirar adag u sameeya. guriguba aas adag haddaan loo sameyn wuu dumaa. guurka iyo isla sheekaysiga koowaadna haddii aana aas adag marka hore loo yeelin wuu dumayaa. marka barnaamijyadaasoo dhan baan rabaa inaan ka hadlo haddii ilaahay idmo, oo qodob iyo midba meel uu wajahan yahay uga hadlo. tan kale hooyooyinkana barnaamij kale aan uga soo hadlayaa. waxyaalaha haddaan hooyooyin nahay ayagana sidoo kale aan yacni ka gaabinay oo nolosha uga gaabinay, oo maanta jiilba jiil noogu sii dhiibayo inaan yacni wiilkiina uu intaasoo gabar soo fulo, intaasoo cunug oo kala hooyaa keeno, gabadhiina intaasoo cunug oo kala aabbaa keento, oo ay sii badanayso amoodid inay faraha kasii baxayso. booska hooyooyinka uga aadanna inaan ka hadlaan rabaa haddii ilaahay ii idmo. marka barnaamijkan hadda waa hordhac, yacni wixii aan u soo galay meeshaan inaan ka hadlo aan rabo, intii aan ka garanayo
ama ilaahay i garansiiyo insha allah haddii ilaahay ii idmo barnaamijyadaasoo qodobaysan baa ii diyaarsan oo aan rabaa inaan ka hadlo tan waa hordhac waa idi salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu